ardayda dhigata jaamacadda Kismaayo ayaa waxaa si toos ah ugu biloomay imtixaankan teeranka oo sanad walba hadahan oo kale ay qabato jaamacadda Kismaayo. imtixaankan teeranka ayaa waxa uu fariistay arday gaaraysa ku dhawaad 350 arday. madaxa imtixaanaadka jaamacadda Kismaayo ayaa waxa uu ka warbixiyay imtixaanka nisbiga oo sanadkani u bilowday ardayda dhigata jaamacadda Kismaayo. imtixaankii sanadka qaybtiisa koowaad ee semesterkiisa koowaad ee sanadka imtixaanku wuxuu inoo soo bilowday bisha aynu ku jirno January 19keedii wuxuu dhamaan doonaa insha Allah 29 bisha January. imtixaanka waxaa fadhiisatay arday tiradeedu tahay 350 arday oo ay isugu jiraan dhammaan kulliyadaha jaamacadda sida kulliyadda dhaqaalaha, kulliyadda caafimaadka iyo kulliyadda shareecada iyo tarbiyada. inta imtixaanka socdo wax caqabad ah ayna la kulannay ma jiraan. imtixaanka maadooyinka ay ardaydu galayaan kulliyadaha way kala duwan yihiin sida kulliyadda dhaqaalaha oo kale semester waliba waxay qaataan